tooska qadka ugu jira Southern Media Corporation wakiilka dawladda koonfurta Soomaaliya Dr. Ali Baab. Dr. Ali Baab Gaaywarow gobolka Shabeellaha Hoose maxaa ka dhacay? marka hore waa idin salaama Southern Media iyo adiga iyo dhammaan dhageystayaasha. runtii waxaan idin soo wacay inaan aan bulshada iyo madaxda aan gaarsiino dadka aan codka lahayn codkooda dhibaatooyinka ka dhacaya gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan gaar ahaan dhacdooyinkii waxashnimada ahaa ee ugu dambeeyay ka dhacay tuulada Gaaywarow. tuulada Gaaywarow oo ka tirsan degmada Qoryooley dhammaan tuulooyinka ku hareersan degmada Qoryooley daraad bisha 7 waxaa ka dhacay guluf colaadeed degmada Qoryooley iyo nawaaxigeeda. Dr. Ali Baab yaa soo weeraray Gaaywarow, degmada Gaaywarow yaa soo weeraray adoo raali ah. deegaanka Gaaywarow dhibaato weyn oo waxashnimo ka dhacday caruur baa lagu laayay ciidamadii dawladda markii ay Dr. waxaa sheegtay in ciidamadu ay gacan marsadeen markii ay Gaaywarow soo qabsadeen oo ay ka saareen ururka shabaab. Gaaywarow sideeda ahaanba yaa degan macnaa dadka la gacan marsaday ma shabaabba mise dadka shacabka dadka la gacan marsaday waa dadkii deegaanka deganaa ee beeralayda ahaa ee aan hubeysnayn ee deegaankaasi ku nool ayaa la gacan marsaday. waxaa ka dhacday waxyaabo aad u foolxun oo faraxumeys ah in ciyaal la dilo 7 jir ah 4 jir ah in la dilo oo la toogto ayaa ka dhacday. waxaa dhacday in hooyooyin la faraxumeeyo haddaan tusaale usoo qaato hooye Khadiijo Cali Sidlow oo la faraxumeeyay waliba mataqaana si qaab daran oo waxashnimo ah in baynaadii la dhaceen waxyaabahaas ka dhacay. cusbitaal male deegaankii wax gurmada iyo wax male sida la ii sheegay waxa loo geeyay islaan umulisa ah waxba way ka qaban weysay waa qof ilaa iyo 7 qofood lagu faraxumeeyay oo waliba beynaan la dhacay. gabadhaas hooyadaas magaceeda la dhaho Khadiijo Cali Sidlow oo reer Gaaywarow ah dhibaatooyin aad u foolxun baa ka dhacay. ciyaalkii la toogtay qaarkood cusbitaalada Qoryooley baa lala soo arday ilaa xabar. waxaa dhacday in gabadhaasi reerkeeda hortiisa ciyaalkeeda hortooda lagu faraxumeeyay. Dr. Ali Baab laakiin haddaan ku noqono macnihii eedeymaha noocan oo kala mar walba dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeedu waa loo jeediyaa laakiin goobta aad sheegaysaa kaliya dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadeedu mas'uul kama ahan. meesha waxaa ka jira maamul la yiraahdo koonfurta Soomaaliya oo la mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira. dhacdooyinka ugu badan ee xanuunka badan ee ka dhaca Soomaaliya waxaa inta badan laga soo wariyay gobolada koonfurta Soomaaliya qaasatan haatan gobolka Shabeellaha Hoose. gobolada kale ee koonfurta Soomaaliya maamul goboleedyada ka jira ama markayse waqooyiga kama dhacaan sida hadda la sheegayo ciidamada dawladda dhibaatooyin noocaas oo kama geysan karaan. aaway maamulkii ka talinayay ma arkaysa deegaanka haatan aad sheegaysid in ciidamada dawladdu ay macnaa gacan marsadeen oo dumarka iyo caruuraha ay kufsadeen oo toogteen. runtii gobolka Shabeellaha Hoose waa dayacan yahay maamulka koonfur galbeed maba soo gaarinba weli 3 sano ee uu jiray iyo barka maba soo gaarinba maamulka koonfur galbeed. taasna weli waxa noo cadeynaysa oo cadeyn buuxda noo ah hogaamiyaha koonfur galbeed Shariif Xasan waa tii uu meel fagaaraha ka dhacay. annaga duruufo jira awgood ayaan Shabeellaha Hoose waxba ugu qaban weynay. marka Shabeellaha Hoose waa dayacan yahay kaliya niman baa la soo magacaabaa oo ka mid ah haraadigii SNA ka mid ah ayuu waraaqo ku soo magacaabaa si dadka ay lacagta baada aga awoodsadaan kaliya. Dr. Ali Baab haraadigii SNA ayaa loo soo magacaabaa maxaad ula jeedaa macnii SNA ururkiisu hadda ma dhisna maxaad ula jeedaa ereygaas isaga haraadigiisii jooga haraadigiisii jooga kuwaas waraaqo ku soo magacaaba si umada jidbooyooyin iyo isbaaro iyo baad aga qaadaan isagana uu kula wadaago shirka kula yahay lacagaha laga aruuriyo gobolka Shabeellaha Hoose. laakiin maalina kama hadlin dhibaatooyinka ka dhaca wax horumar uu sameeyay male webiga dhowr jeer baa webiga soo fatahay wax uu ka qabtay male
dhacdooyinka maanta aan ka hadlayna kuwa lamid ah hore usoo dhacay weligiis kama hadlin afgooyay ka dhacdaa qoryoolay ka dhacdaa awdheglay ka dhacdaa walaweyn daafeeday ka dhacdaa magaalada marka waxay noqotay meel lagu kala guuray magaalada baraaway ka dhacdaa 8 degma meel fayow male maalin doctor cali baab adoo raalli ah fallaadhi gilgilisho kaagama harta ayay soomaalidu tiraahdaa arrintan ama xanuunka kan hadda sheegaysid waa uu ka jira gobolka shabeellaha hoose adduunka oo dhan arkaya saa awgeed ma arkaysa shariif xasan sheekh aadan 4 sano uu joogaa 3 sano uu joogaa waxba uu ka qaban waayay kaliya macna ma samaynayso adinku gobolka shabeellaha hoose hadda tiin ma arkaysa aaw ciidamadiina aaw dadnimadiina aaw abaabulkiina maxaad isaga celin laadiin nimankaas idin haysta midda kale shariif xasan sheekh aadan haatan wuxuu doonayaa inuu kursiga macnaheedu 4 sano dambe dib uu ugu soo laabto marka arrimahaasi macnaheedu maxaad ka leedahay aragtidiinu maxay tahay inuu soo noqday in kale midda ugu horeysa ciidan deegaan waa noo diiday maamulka koonfur galbeed in aan yeelano kadib markii aan dhalinyaradeedii aan habeynay aan isku duba hudnay oo aan aruurinay waxaan nidhi xataa magac noogu bixi dhalinyaradan yani si yani ciidanka deegaanka waayo 8 degma ka mid ah baayo bakool baa loo suubiyey ciidan deegaan laakiin gobolka shabeellaha hoose waa loo diiday in loo suubiyo tan kale waxaan leeyahay soo noqoshada shariif xasan nimayahow qoltoosan oo tubtaalo wixii loo qaadan waayey ayay qabtaa marka shariif xasan cidda leh yani 4 sano dambe dib ha loo doorto waxaan leeyahay waxay la mid tahay dabagaale abeese ilmaha ka dhalo laakiin doctor cali baab haatan waxay la mid tahay hadallada ka soo yeeray malaaq xasan jure iyo xildhibaanada oo weliba yani hadalladaasoo ahaa hadallo faldambiyeed ah oo sababtoo ah si toosa ay u dhaheen yani waxbaan dilaynaa odayga wax dembi male laakiin dembiga waxa leh xildhibaanada federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee meesha joogay waxaa rabaa inaan u sheego in yani ay galeen faldambiyeed ah dhiiragelin dagaal colaadeed haddii 17 November electionkaasi oo wax ka dhacaan waxaan u sheegaa in ay iyaga mas'uul ka yihiin xildhibaanadii goobtaa fadhiyey ayaa ka mas-uul ah laakiin odayga xasan shure waxaan leeyahay dabagaale aweese ilmaha ka dhalo waa kaa diiday يعني واحد صوت القلب معهن واحد شريف حسن دبجال أو يسا كنا لم يعلن تاي شريف حسن صار نقطه واحد لم ينتهي دبجال أو يسا البحر كنا أي لم ينتهي حدي شريف حسن وصار نقطه أنا بلان بي أي روح إلى دول كشمالها هوسه إن شاء الله تعالى. دكتور علي باب ورك كاس وبحايا وورق آد علوس أبى يسا دبجال لها كائل مدلو وأري آد علوس دوك شريف حسن هدو صار نقطه وحد كهن جبيسه إن بلان بي أدو هيسان قبل shabeellaha hoose laakiin balambiga intaynan gaarin haatan isbaarooyinkii baa sii socda dhibaatooyinku way ku sii badayeen saad ka dhawaajisana odayaal warbaahinta waxay soo qabatay ma arkaysa la arkayay oo xasan shure uu hogaaminayo oo leh ma arkaysa anagu haddaan beel hebel nahay ma arkaysa waa qasab in la doorto shariif xasan sheekh aadan ma arkaysa dadka qaarkii waxay leeyihiin shariif xasan sheekh aadan ayaa ka dambeeya qaarna waxay leeyihiin may odayaasha nafsadooda ayaa soo abaabulay adigu fakarkaagu waa maxay waxaad leedahay odayaashu waa la soo khasbay mise ma arkaysa iyaga ayaa is soo abaabulay oo arkay shariif xasan inuu dalka wax u qabanayo horta runtii odayga malaaq xasan shure ma ahan oday qaabka u hadlo baanan ogeen mana ahan odayga taariikhda uu soo baray 6 gobol waa la socdaa oday qaabkaas u hadla ma ahan odayga laakiin waa oday la heesto noqday oo waayo banaanba ma soo bixi karaan waa malaaqdeero uu sheegay 3 sano iyo intii maamulka dhisnaa aysan reerkoodii tegin ilmahoodii u tegin marka waa dad yani kaam ku jira odayga waa la soo qasbay xildhibaanada federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ee hareeraha ka fadhiyey iyo shariif xasan baa soo qasbay odayga waa la soo qasbay xataa kelmadda uu ku hadlay waatan uu leeyahay haddaan nahay beelaha 9 yani isagoo ka xishoonayo yani inuu 9 dhaho ayuu yani odayga yani oday mataqaana isaga ka timid ma ahan odayga shariif xasan baa soo qasbay wuxuu usoo adeegsaday xildhibaanada halkaa fadhiyey laakiin waxaan leeyahay weedhaasi waxay dib ugu soo noqonaysaa dhiirigelinta colaadeed ah faldambiyeed waaye waxayna dib ugu soo noqonaysaa xildhibaanadii federaalka iyo kuwa galbeed ee meesha jooga ay dib ugu soo noqonaysaa haddii 17 November electionka dhacaya haddii ay wax dhacaan anaga codkaasi waa haynaa haddii wax dhacaan
waxa u qoolan oo yani faldambiyeedkaasi mas-uulka ah oo dhiirigelinta sameeyey waa xildhibaanadii federaalka iyo kuwii koonfur galbeed ee halkaasi fadhiyey waaye دكتور علي باب أدور رالي دكتور علي باب أدور رالي داود يلا واحد نقدر جاي سنة ستة وصور باهين Southern Media Cooperation برتمها قارة يوروب هاتنا وحاسد توس كقد كوجرة وكيل الدولة كونفرت صوماليا دكتور علي باب دكتور علي باب قنتي جمن جبدي أيام كلنا هاي وقتك أيام كل عليا هدي عن سؤال هو سأل كويديو waxaad haysataan gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya ugu hodansan baadleediin ama Soomaaliya oo dhan gobolka ugu hodansan baan dhigi karnaa ayaad adinku u nasab sheegataan oo leediin ma arkayse haddii gobolkaasi isaga aad ma arkayse ammaankiisi aad hanan weydaan oo barwaaqadiisi aad gacanta ku dhigi weydeen ma dhihi karnaa haddii sidii qolihii Yuhuudda la sheegay ee Bani Israa'iil maa'ida samada looga soo dejiyay ma arkaysa hanan waaye oo kale xataa inaad la mid noqonaysaan xataa haddii maa'ida hadda la idiin soo dejiyo kalluunkii jannada laga soo kariyey iyo ma arkaysa ukuntii jannada laga soo karkariyey la idin keena xataa inaadan hanan karin ma aaminsan tahay sidaas haddii maamulkan mataqaanaa fadiidka ah ummadda yani kala goynayo uu naga dhaqaaqo oo la helo maamul amni iyo ammaano leh haddii la helo hoggaan ammaano leh haddii la helo ilaa ninkan nin ammaano lehba ma ahbo haddii la helo hoggaan ammaano leh ma noqonayno laakiin haddii ninkan uu soo noqdo hadda hogaamiyaha ka ah waa la mid noqonaynaa balse haddii hoggaan amni iyo ammaano leh koonfur galbeed ay u dooraan xildhibaanada waxaan noqonaynaa jannatu dunya دكتور علي باب ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa dadweynaha oo sii macaansanaya waraysigaaga haddii Shariif Xasan Sheekh Aadan uu soo laabto dad baa hadda ka hor waxay isu dhigeen taangi diiday yihiin Shariif Xasan aawadeed taangi Ethiopian lagu waday adinku haddii Shariif Xasan uu soo noqdo diyaar ma u tihiin in ma arkayse aad kabaysaan oo buraysaan isla markaasna sida Qadaafi ama ma arkayse Cabdalla Saalax oo kale kii Yemen aad ma arkayse madaxiisa u qarxisaan maxaa idinka go'aan oo idinka qoraa maanta waxaad naga qoraysaa laba kelmadood Shariif Xasan odayaashan uu yani hadba yani kusoo hadlo oo kusoo shubto meelaha la yimaado xildhibaanada aan damiirka lahayn uu kusoo shubto meelaha ka hadla waxaan leenahay haddii ay rumuudo soo noqoshada Shariif Xasan laba ka fisha koonfur galbeed in يعني koonfur galbeed ay sidii cali cabdalla saalax iyo qadaafi la yeelo Shariif Xasan ama in yani ayaka tashiga gobolka mataqaana gobolada koonfur galbeed ay kala dhantaalmi doonaan labadaasaa soo baxayso ayaan u sheegaa waxaan leeyahay haddii Shariif Xasan soo noqdo laba ayaa soo baxayso mid in yani sida qadaafi iyo cali cabdalla saalax in la yeelo talabaad haddii la yeeli waayo in yani midnimada iyo wadajirka koonfur galbeed ay kala dhantaalmi doonto ayaan u sheegaa marka waxaan leeyahay nimayahow dabagaale aweese ilmo kama dhalaaye Shariif Xasan 4 sano wax qaban waaye la dhaafiya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhagaystayaelkaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Cabdi Baab oo ah wakiilka dawladda koonfurta Soomaaliya u fadhiya boqortooyada Ingiriiska UK oo u waramayay warbaahinta koonfurta Soomaaliya ku bahowday ee afka qalaad loo yaqaan Southern Media Cooperation waraysigana waxa qaadaya anigoo ah Ustaad Adam Increase suxufiga lugeeya ee wariyaha jugta culus Dr. Cali Baab aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xiriirka aad soo siisay Southern Media Cooperation aad tihiin sida yani dadka aan codka lahayn aad codkooda banaanka u bixisaan waa idinkaga mahad celinayaa idam alle kulanka xiga dhagaystayaal haddii nala kala qaato ballantanada waxa weeye idam alle jannatul firdawsa mayage wejido wan mayagi wejido walking hilayaw walaal horba waaytay wejido walking hilayaw walaal horba waaytay wejido ada walaalalekeed waay walnyanyaankii wiirkii daweede wali ay ogaatee wejidow taloy waqtikii galay isaasoytuko
ولي وقاتي وجدوا طلع وقتكي قال وسايتكوي وسايتكوي